Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhowaada dhaqankaab. Waa sheekadii Juxa. Juxa waxa uu ku noolaa meel miyiga. Waxa uu lahaa dameer. Maalin kasta dameerka waxa uu kusoo rari jiray milix. Milixda waxa uu kasoo qaadi jiray tuulo u dhow. Waxa uuna ka iibin jiray xaafadaha jaarkiisa ah. Tuulada iyo xaafadiisa waxa u dhexeeyay webi. Webigaas oo kasoo tallaabi jiray maalin kasta. In maalmaha ka mid ah Juxa oo kusoo raray dameerkiisii milixdii oo wada ayaa uu dameerkii ku dhex dhacay webigii. Dhammaan milixdii saarneyd waa ay milmatay, waxaana ay ku milmatay biyihii webiga. Dameerkii waxa uu ka soo baxay webigii isaga oo fudud kana kala degay culayskii iyo miisaankii saarnaa. Juxa waxa uu maalintaa tegay xaafadii isaga oo aan waxba sidin oo wata dameerkii oo qura. Labaadii Juxa waxa uu soo raray dameerkii sidii caadada u ahayd. Dameerkii waxa uu fahmay haddii uu dhex galo biyaha ama uu quuso biyaha dhexdooda in culaysku ka yaraanayo, waxa saaranna ay milmayaan. Si la mid ah dameerkii waxa uu isku dhex tuuray biyihii. Dhammaan milixdii saarneyd waxa ay ku milmatay biyihii. Maalintaana Juxa waxa uu dameerkii geeyay xaafadii isaga oo madhan. Juxa oo aad u xanaaqsan ayaa maalintaa waxa uu soo dejiyay qorshihii uu ku ilowsiin lahaa dameerka biyahan uu dhex gelayo. Maalintii saddexaad Juxa waxa uu soo kaxeeyay dameerkii. Waxa uu geeyay tuuladii. Waxa uu ku soo raray carro ama ciid. Dameerkiina waxa uu haystay fikraddii ahayd haddii aad dhex gasho biyaha waxaan ku saaran oo dhami waa ay kaa degayaan. Markii la dhex marayay webiga sidii caadadu ahayd dameerkii waxa uu ku fikiray inuu isku dhex tuuro biyaha. Waxa aanu isku dhex tuuray biyihii. Hase ahaatee maalintaa sheekadu sidii way ka duwanayd. Dameerkii waxa kaga soo baxay waxa aanu ka filanayn meesha. Ciidda haddii lagu qooyo biyo aad ayaa u sii cuslaataa. Waxa ku sii batay miisaankii iyo culayskii saarnaa. Waxa uu ka dhex bixi kari waayay webigii. Juxa ayaa caawiyey oo ka saaray dameerkii webigii. Juxa ayaa aad inta uu qoslay ayaa uu yidhi alleyle waxaan la ciyaaray maskax. Dameerkii waxa ugu dambeysay maalintaa inuu isku dhex tuuro webiga. Wixii ka dambeeyay dameerka toos ayaa uga tallaabiyay webiga. Waxa uu islahaa haddii aad isku dhex tuurto webiga waxa kugu sii badanaya miisaanka iyo culayska ku saaran. Fadlan subscribe saar si ay kuu soo gaadhaan muuqaalada cusub.